muslim bay noqotay muslim markay noqotay oo diinteedii ay haysatay waxyaalo badan oo shuuca aga furan yihiin laakiin waxaa jira dad badan dhibaato nagu sameeyay oo kamid ah sida walaasheed oo kaleeto. Okay, so we're going to actually be answering how we met. So I grew up Catholic, Christian, didn't really believe in what they were teaching us in church. It never made sense to me. So I kind of veered off of that religion, stopped going to church. And, you know, fast forward a few years, I was actually going to college. It's where I actually met him. Walking around, I knew he was good looking, so stopped and introduced myself. Noticed that you know, he practices a different religion. Asked what that was. He said it was Islam. So I went ahead and did some research, found out all of the pillars, all of the core beliefs of Islam, and I noticed that everything was on point with what I actually believed. It was so much different than what I grew up with, but a lot of the core beliefs I truly believed in. And so we started talking more and more, went on a few dates, and you know, after a while I actually did convert to Islam. A little after that we actually got married. So waxa waaye marka hore dadkiinan oo soo dalbaday arintan waa mahadsantiin dhamaantiin horta qofku Ilaahay hanuuninayo hanuunsan gabadhan uma baahneen wax weyn dhactaan uma baahneen sababtoo qof wuxuu ahaabo oo diinteedii ay haysatay waxyaalo badan oo shuuca aga furan yihiin shuucaas waa qofku Ilaahay soo hanuuninayo meelo badan oo ka soo hanuuniyaa anigana qof muslim ahay wixii karaamkayga waxayd inaan qofku u sheego waxaan aaminsanahay iyo wixii aaminsaneed markay aragtay waxaan aaminsanahay iyo waxaan u sheegay inuu ninkii maartay ninkii u maleynaysay inuu yahay Ilaahay u maleynaysay inuusan Ilaahay ahayn oo prophet yahay oo Ilaahay soo diray sida prophetyada kaleeto adi markii wixii dhan dareentay way ka heshiintii kadib markay ka heshay ani ayada waxaan go'aansanay inaan isla sheekeysano sheekadeena markay dheeraatay isla sheekeysanay muslim bay noqotay muslim markay noqotay kadib waxa dhacday inaan u sheego aan dhada muslim noqotay waxa ogaataa hooyada inay ku nacayso aabbaha inay ku nacayo walaalaha inay ku nacayo dadka kugu dhow inay ku nacayaan diyaar ma u tahay hay'ad wax nagam galada ku jeclahay kadib waxa ogaaday in aabaheed uu aaba fiican yahay hooyada hooyo fiican tahay ee gabadheeda si fiican u dhaweeyeen ani ii soo dhaweeyeen laakiin waxa jira dad badan dhibaato nagu sameeyay oo kamid ah sida walaasheed oo kaleeto aan ii soo sheegi doono part 2ga sida arintaas iyo wixii soo dhibkan soo maray iyo wixii lagu maartay cansuriyay oo sababtoo ah gabadha muslim noqotay marka kuma soo dhaweyn kari waxaan rabaa mar kale inaan soo galiyo video kale oo aan ka hadlayo arintaas adinkan waa mahadsantihiin mar labaad waxaan ogaateen arintan inay maartay arin ay fiican tahay marka qof diin ku soo